yadii ugu dambeeyay saameyn sidaan u khasaare baaxad leh qarax uu ka soo gaaray guri kasta oo Soomaaliyeed Muqdisho ku yaala caawa waxaa gaartay musiibada qaraxan iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay iyadoo dad badan waa dhalinyaro u badan oo Soomaaliyeed caawa musiibada daran ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay ama qaraxii ka dhacay xeebta Liido iyo sidoo kale weerarkii ka dambeeyay haddaba waxaan si kooban u eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee weerarka ragga fuliya weerarkaas oo xoog laga helay iyo sidoo kale isbitaalada Muqdisho oo la gaarsiinaya dhaawacyadii ugu badnaa iyo fariimo qeyr leh oo ka imaanaya isbitaalada dadkii ugu badnaa ee Soomaaliyeed oo iyagu baadi goobaya wali dadkooda oo aysan raq iyo ruux ku hayn iyo sidoo kale dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaraxan ku saamoobay oo magacyadooda iyo sidoo kale sawirradooda si aad loogu baahinayo baraha bulshada waxaan qadka soo gali doonaa sidoo kale wariyaheena Cumar Cali Dhiblaaw Cumar Kaartay oo isagu nooga warrami doona waxyaabihii ugu dambeeyay maadaama xeebta Liido oo weerarkan ka dhacay uu isagu ku sugan yahay balse waxaan ku hormarayaa weerarkan sida la sheegay ama xogihii ugu dambeeyay ee aan helnay ay sheegayaan weerarka ragga fuliyay waxaa lagu sheegay 4 inkastoo dadka qaarna ay leeyihiin waa 5 waxaa la sheegay in weerarka hotelka ragga ka geysay ay ka soo galeen dhanka xeebta iyagoo ka yimid dhinaca Kaaraan sida la sheegay khasaaraha ugu badan waxa sabab ayaa lagu sheegay in ragga weerarka fuliyay ay wateen bambaanooyin sidoo kalena dhammaantood qaraxyo ismiidaamina uu ku xirnaa raggan ayaa la sheegay inay bambaanooyinka tuurayeen marka ay bambaanooyinka mid ka mid ah ka dhamaatana uu isqarxinayay sidaasna khasaaraha uu ku gaaray ilaa xad ka xad dhinaca kale xogaha aynu helnay ee hordhaca ayaa tilmaamaya in mid ka mid ah raggan uu dhexda ka galay dad shacaba oo goob ku sugnaa aadna isugu dhawaa sidaana uu isugu dhex qarxiyay iyadoo khasaaraha ugu badan halka uu ka dhashay hotelka la weeraray magaciisu waa Beach View waana hotel si aada loo camiro kuna yaala xeebta Liido xiliyadan oo kale ama xiliyada jimcaha oo kalena waa meelaha ugu badan ee dadku ay tagaan marka aan kaga tagno ragga weerarka fuliyay iyo xogaha laga helana daqiiqadihii la soo dhaafo waxaa si aada u baahaya qararacanka iyo sidoo kale xanuunka murugada ka dhashay dadkii ugu badnaa ee Soomaaliyeed ama dhalinyaradii ugu badnaa ee Soomaaliyeed ee mar qura dhinta kuwaasi oo sawirradooda lagu baahinayo baraha bulshada dad ayaa u tacsiyeynaya eheladooda kuwaas oo ku saamaba weerarkan qaarkood dhaawacyo daran ayaa gaaray sidoo kalena qaarkood ayaa dhintay waxyaabaha ugu murugada badan ee la soo calaamadeeyay caawa waxaa ka mid ah ee weerarkan laga soo calaamadeeyay in nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaaskiisii maalin ka hor ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kana timid qurbaha taasi oo 3 caruur u haysay ay caawa u damaashaa tageen xeebta Liido balse markay halka ay tageen weerarka uu asiibay isla markaana xaaskiisii halka ay ku geeriyootay isagayna uu dhaawac yahay waa qararacan ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee caawa saameynta ka dhalatay weerarkan lagu qaaday ama qaraxyada iyo weerarka xiga ee lagu qaaday xeebta Liido ninka hadda xaaskiisii ma hayo oo ay ka geeriyootay sidoo kalena isagii ayaa dhaawac si la mid ah dhinaca kale iyana waxaa la tabinayaa khasaaraha ama la soo baahinayaa khasaaraha weerarkan oo gaaray ama ay ku geeriyoodeen dad u badan dhalinyaro maadaama goobta la weeraray ay tahay goob waa damaashaad iyo dalxiis tago oo ah xeebta Liido halkaas dhalinyaro badan ay camiraan waliba jimco ay tahay haddaba waxaan ku laabanaynaa wariyaheena Cumar Kaartay si uu inooga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee isagu weerarkan dhinaca kalena haddii aan soo koobo inta aan Kaartay aadin isbitaalada ayaa dalbanaya in gurmad dhiiga ay la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed maadaama isbitaalada ay tagayaan ama la geynayo dhaawacyadii ugu badnaa kuwaasi oo u baahan dhiig degdeg dadka ayaa loogu baaqay ama isbitaalada magaalada Muqdisho fariimaha ka imaanaya ayaa ah mid ay dhiig kaga dalbanayaan dadka Soomaaliyeed fariintan waxa ay ku socotaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiir iyo damqasho leh walaal xaadir isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dhiigaaga sidaqayso si looga badbaadiyo dadka Soomaaliyeed ee iyagu musiibadan caawa ku waxyeeloobay laga yaabay inaad sabab u noqoto ilaahayna sabab kaaga dhigo inaad badbaadiso walaalka oo garab kaaga baahan taasi waa fariin ku socota bulshada iyagu bad qabta ee ilaahay ka badbaadiyo caawa xaaladan musiibada ah ee xeebta Liido ka dhalatay Liido waa meelaha ugu badan ee bulshadu ay xaadiraan loona dalxiis tago caawana waxaa ka dhacay wax aan la filayn iyadoo weerarkan lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa uguna khasaaraha weynaa ee waqtiyadii la soo dhaafa ka dhaca caasimadda dalka ee Muqdisho sawirada iyo muuqaalada la baahiyay ee qararacanka abuuray ayaa ah kuwa iyagu muujinaya dadkii ugu badnaa ama bulshadii ugu badnaa kuwaasi oo safan xeebta Liido
qaarkood ay dhinteen qaarkoodna dhaawacyo yihiin islamarkaana gurmad dalbanaya. inta aan raggan weerarka soo qaada lasoo afjaray waxaa la arkayay muuqaalada dad dhaawacan islamarkaana cid u gurmata islamarkaana halkaasi iyagu gacanta taagtaagaya una baahan cid u gurmata balse gurmadkii ka daahay maadaama weerarku uu socday muddo saac ama waa daqiiqada ah. ragga weerarka la furiyey ama weerarkan furiyey iyagu sida la sheegay ama xogaha hordhaca ay tilmaamayaan waa rag 4 gaaraya qaraxyo iyo sidoo kale bambaanooyin ayayna wateen. waxaan qadka si toosa usoo geli doonaa cumar kaartey oo isagu ku sugan xeebta Liido bal jawigu sida uu yahay balse waxaan saaxiibada iyagu ogeysiinayaa ama daawadayaasheena inay soo wici karaan islamarkaana ay nala wadaagi karaan wixii xoga iyo macluumaada ay caawa ka hayaan weerarkan. haddii uu jiro qof ehelkaaga ah oo aad waaweysan tahay sidoo kale waa nala wadaagi kartaa si aan u gudbino islamarkaana lagula baadi goobo bal raq iyo ruux halka uu ku dambeeyo. daawadayaasha qadadka teleefoonada ayay si toosa usoo wici karaan si bal noola wadaagaan macluumaadka ama xogaha weerarkan iyo sidoo kale waxyaabaha iyaga dhankooda ka saameynaya. qadadka teleefoonada ee TV-ga ayaa si toosa usoo wici kartaa. xaaladda guud ee caawa muqdisho waa mid cakiran waxaana la arkayaa weli dhaawacyo la daldalayo islamarkaana waa loo sii daadgureynaya isbitaalada muqdisho. qadadka ayaan jaleecaynaa iyo daawadayaasha ku jira goordhow balse markaan kaarteeye ayaan si toosa qadka usoo gelinaynaa bal si uu noogu soo koobo macluumaadkii ugu dambeeyey ee xilligan xeebta Liido iyo sidoo kale halka uu weerarku ka dhacay. cumar oo soo dhawow bal xogihii ugu dambeeyay nala wadaag. waa mahadsan tahay Bashiir Cali Shire waa ku salaamaya daawadayaasha barnaamijka sida tooska u daawanayna waa salaamaya Bashiir oo sidan faahfaahinta hore ugu bixinaba qarax isnidaamin ah oo aad u xoogan ayaa waxa uu ka dhacay xeebta Liido magaalada Muqdisho. dabcan wali xaaladdu waa sideedii qaraxuna waxa uu ahaa mid saameyntiisa caawa laga dareemay guud ahaan guri kasta oo magaalada Muqdisho ku yaalo waxaana dabcan dadku ay dareemayaan xaalad aad u xun maadaama qaraxu uu saameeyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku caaweynayay mid kamid ah goobaha ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ah xeebta Liido. 9 fiidnimo ee caawa qaraxu waxa uu ka dhacay hotelka Beach View hortiisa halka xeebta ah oo dadku ay taagnaayeen qof isu qarxiyay kadibna rag hubeysan ayaa gudaha waxay u galeen hotelka Beach View bambooyin iyo waxay adeegsanayeen hubka aadka u culus. waxaana daqiiqado ay xabad halkaas ka dhex socotay kadib hadda oo aan weli ku suganahay xeebta Liido meel aan ka fogeyn oo degmada Cabdicasiis kamid ah waxaa socdo maxaa la dhahay xabado teelteel ah mararka qaarna bambaanooyin ayaa la maqlayaa. haddana waxaa inta badan lagu guuleystay in dhaawacyadii iyo meydadkii goobta laga wada qaado oo kooxihii gurmadka ayaa arrintaasi dabcan fidinayay. ambalaasyadii ugu tirada badnaa iyo kooxihii gurmadka ayaana goobta soo gaarayay saacadihii ama daqiiqadihii ugu dambeeyay ayaga oo dhammaan qaaday ama ku guuleystay inay qaadaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. isbitaalada Muqdisho ayaana jaam ah waxaan tagay oo aan goordhow booqday ilaa iyo dhowr isbitaal oo kala ah isbitaalka Umma, isbitaalka Kalkaal, isbitaalka Jazeera iyo isbitaalo kale waxaana buux dhaafiyay dadkii la geeyay meydadka iyo dhaawacyada ku saamoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa ka dhacay xeebta Liido magaalada Muqdisho. dabcan waxaa jiro dad ilaa iyo haatan la yahay oo aniga dad aan garanayo oo dabcan waxaa jiro ilaa iyo haatan nool iyo geeri aan lagu haynin meeshana lagu ogaa xilligaas inay taagnaayeen. waxaa kaloo sidoo kale daawadayaasheena marka ay ka warqabaanba in qaraxa uu ku dhaawacmay oo faahfaahinta dabcan tan ka horeysa aan ku bixinay mid kamid ah wariyaasha telefishinka SMS gaar ahaan agaasimiga Qaasim Ibrahim Cadaan Qaasim Karaama oo dabcan qaraxa dhaawac fudud uu ka soo gaaray asagii oo aan la hadlayna waxa uu ii sheegay in xaaladiisu ay wanaagsan tahay inkastoo ay suuragal weysay inaan si toos ah goobtii uu ku sugnaa uu gudbo isbitaalada oo jaam ah awgeed haddana xaaladiisu ay wanaagsan tahay alxamdulillah. waxaa hadda sidoo kale asaga uu ii sheegay in rag asaga la socdo oo asxaabtiisa ahay ay dhaawacyo gaareen qaarkoodna la la'yahay. marka mid kamid ah dadka la la'yahay eheladooda oo aan haatan isla joogno waxay dabcan muujinayaan ama ka muuqdo xaalad aad u murugo badan oo ay baadidoobi ku jiraan. dabcan isbitaal walba ay booqanayaan mana jiro in xaaladii si fudud ama isbitaalada si fudud inta lagu galo si fudud qofkii lagu heli karo maadaama jaamku uu tiro badan yahay dadku ay tiro badan yihiin dhaawacyada iyo arrintaasi ah. warka wixii ku soo kordha arrimahaas la xiriira barnaamijka waa soo gudbin doonaa si fiican.
kaartayo waxaad dadka usoo koobtaa bal weerarka ma lasoo afjara raggii weerarkan soo qaaday iyagu mise weli waa ay dagaalamayaan taas waa mahadsan tahay bashiirow weerarku dabcan 9 fiidnimo ayuu bilowday hadda aan kula hadlayo saacadu waxa ay tilmaamaysaa 12 habeenimo oo 10 daqiiqo ay raacsan tahay weli waxaa si teel ah loo maqlayaa xabadihii iyo mararka qaar oo bambaanooyin ay dhacayaan marka ma xaqiijin karno hadda ma dhihi karno weerarkii waa la soo afsharay laakiin adiga 30 daqiiqo ee ugu dambeysay si rasmi ah xabada isweydaarsi ah ma aysan dhicin laakiin sida lagu yaqaano ogyahay oo lasoo bandhiga ma jiraan ilaa iyo hadda wax khasaare ah oo lasoo bandhigay ama laamaha ammaanka oo hadla ma jiraan laamaha ammaanka ilaa iyo haatan arrintan kama aysan hadlin warbaahinta dowladda war qoraal lagu daabacay waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho ee dowladda soomaaliya ay ku howlan yihiin inay soo afjaraan ragga halkaasi weerarka ku qaaday dadka shacabka ahna goobta ku sugan gurmadiya loo fidinayo waxayna warbaahinta dowladda lagu sheegay in dowladdu ay faahfaahin rasmi ah ka bixin doonto dhacdadan iyo sidoo kale xilliga la soo afjaro laakiin ma aysan dowladdu shaacin in si rasmi ah loo soo afjaray ragga halkaasi ka dagaalamayo waxaan ognahay bashiiro weerarada lamidka ay hore u dhici jiray in haddii weerarada noocaana ah ay dhacaan in ragga gudaha u gala hoteelada ay galaan meelaha ugu muhiimsan ama luuqyada ugu adag hoteelka kadibna ay halkaasi xabada kasoo tuuraan iyo bambaanooyin ayaga oo mar walba isku dayaya in ay hubka ay haystaan ay xakameeyaan ama ay dhaqaalaystaan si ay waqti badan ugu jiraan hoteelka saasna ay ku helaan hadalhayn ah al-shabaab ayaa waxay ka dhex dagaalamayeen hotel hebel muddo saacada ah oo intaas la eg waa gartay cumar waa kugu soo laaban doonaa aad iyo aad u mahadsan tahay dhinaca kale haddii aynu u sawirno hoteelka la weeraray horta BVU waa hotel 2 dabaq ka kooban qayb sare iyo qayb hoose waxay yareynaysaa baaxadda khasaaraha maadaama laga yaabo in haddii uu dhismo dabaqyo badan ama guryo badan ka kooban hoteelku ahaa lahaa in intaa ka badan dad go'doon ay ku noqon lahaayeen la dhibaato lahaa laakiin waa 2 dabaq oo qayb hoose oo la fariista iyo qayb sare sidaa daraadeedna waxaa hoteelku waa noocaas qofkii aan garanayn daawadayaasha ayaan bal jaleecaynaa bal haddii wixii xoga ay ka hayaan weerarkan iyo bal wixii ay gudbi lahaayeen ee fariina maadaama dad badan oo Soomaaliyeed dhawaaraq iyo ruux ay ku baadigoobayaan ehelkoodii oo tan iyo weerarkan markii uu dhacay la yihiin qofka ugu horeeya qadku ku jiraan jecelahay inaan jaaniska siiyo ugu horeyntii daawada soo dhawow waa dhawaah ayo walaal soo dhawow bal xaaladda xeebta Leydo iyo waxa ay kala socoto nin marka ugu horeyso magacayga Axmed Cumar Xasan la yiraahdaa waxa ku sugan wadanka banaakiisa waa gart wadanka Ingiriiskan jooga waa gart marka nin wixii waa daawaday information inta badan waa arkay internet-kan kala soconaa waxa weeye in Allah wa inna ilayhi raaji'uun waxa waaye Soomaali hadaan nahay musiibada ugu weyn oo maanta haysato waa nimankan aan arxan laawayaasha oo wax ay xeerinayaan mid bini'aadamnimo mid islaamnimo iyo mid ma aragtay xitaa dadka gaalada xitaa way la yaabayaan waxaan waa ceeb sumcad ma aan sharaf ma aan saan xukun laguma gaari karo ilmo masaakiina meeshaas joogay hooyooyin gabdho wiilal waxa waa in la iska laayo la isku qarxiyo hadda waxa waa ninka isqarxinaya xitaa waxa aaminsan inuu sarraali ka ahayn waxaan wax lala yaabo oo diinta islaamka aan ku soo kornay ku dhalanay oo cimrigan inta jirnay waalidkeena iyo Soomaaliyo dhan soo adeegsanay soo isticmaalayeen in maanta la suurad xumeeyo oo nimanka ayaga ku gambadaan waxaas aad baan aga xumahay nafta maalin bay gooyaysaa qof walba Soomaaliya waa u jeedaan in wiilashaas iyo gabdhahaas meeshaas maanta lagu laayay oo waxba aan galabsan heerta Leydo iska fadhiyeen kuwa iska leesanay kuwa jaamacada soo dhameeyay oo meeshaas ku ballamay inay ku sheekeystaan waqti ku qaataan ka bacdi guryahooda gaar in la isku qarxiyay la laayay aad baan aga xumahay waa ka tacsiyeynaya Soomaaliya dhan oo tacsiyeynaya meel kasta ay joogaan waxa waaye idaacadan SMS TV waa u mahadcelinaya sida sharafta leh barnaamijkan laga hadlayaan marka waa u tacsiyeynaya Soomaaliya dhan in Allah wa inna ilayhi raaji'uun kulli waa shahiideen ilaahu jannada firdawsa ugu bishaaray walaalaheen oo caaw meeshaas maaragtay ku shahiiday aad baan aga xumahay waan islaamay waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsan tahay walaalkay sidoo kale adigana waa ku mahad celinaynaa inta dhimatana Allah u naxariisto daawadayaasha kale ee qadadka ku jira ayaan jaaniska sii doonaa balse macluumaadkii ugu dambeeyay haddii aynu ku laabano xoguhu waxay tilmaamayaan in weerarkan ilaa iyo hadda aysan ka hadlin dowladda Soomaaliya isla markaana
si dhaba aan loo ogeyn in weerarka lasoo afjara iyo in kale. Dhinaca kale isbitaalada muqdisho waxaa buuxdhaafiya dhaawacyadii ugu badnaa, waxayna dalbanayaan in dhiig loogu deeqo dadkaasi dhibaatadu gaartay ee dhiigga u baahan, maadaama dadka qaarkood dhaawacyadoodu ay aada u halis yihiin islamarkaana dhiig ay u baahan yihiin. qof kasta oo Soomaaliyeed waxaa gaaraysa ama halkan looga dirayaa fariin ah in isbitaalada ay xaadiraan islamarkaana dhiigooda ay ku sadaqaystaan walaalahood musiibada qadarta ay halashay, islamarkaana dhaawaca ah laga yaabay inaad badbaado u noqoto qof walaalka oo Soomaaliyeed muslimna kula ah. daawadayaashaan ku laaban doonaa, bal haddii uu qadka ku jiro qof ka mid a daawadayaasha. daawada soo dhowow. alo, asalaamu calaykum. waa ka xumahay qofka qadka ka go-ay, waa kusoo laaban doonaa. fariintaas hala gaarsiiyo ama hala sii sheergarayo, qof kasta hala gaarsiiyo, maadaama dadka walaalaheena ee isbitaalada iyagu dhaawacyadooda la gaarsiiyey ay u baahan yihiin dhiig deg dega. isbitaalada maamulkooduna ay codsanayaan in dadkaasi si loo badbaadiyo dhiigga ama dhiig loogu deeqo. xilligan aan idinla hadlayno waa saq dhexe, waa 6 saac iyo 7 daqiiqo ama 2 saq dhexe iyo 7 daqiiqo. weerarkii dhacay tabintiisa ayaynu ku guda jirnaa. abaare 3 saac iyo 50 daqiiqo ayaa weerarkaasi ka dhacay xeebta Liido ee Muqdisho. xogaha weerarkaasi ayaana weli isu soo taraya. macluumaadka la helay waxay tilmaamayaan in rag ilaa iyo 4 gaaraya ay weerarkan iyagu furiyeen. raggaas ayaana la sheegay in dhammaantood ay ismidaamiyaal ahaayeen, sidoo kalena bambaanooyin ay wateen. waxa ugu badan ee khasaaraha badiyey caawana waxay tahay in raggan la sheegay in bambaanooyin tuurayeen, marka ay dhowr bamba tuuraanna midkiiba isqarxinayay. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale la sheegay inay mid ka mid a raggaasi toogteen, iyadoo muuqaalo la baahiyey daqiiqadihii lasoo dhaafo baraha bulshana si aada loogu baahiyey ay muujinayaan madaxa mid ka mid a raggaas oo go-an oo meel yaalla. macluumaadka ilaa iyo hadda la helayo waa kuwo argagax leh. guri kasta oo ka mida guryaha Soomaaliyeedna waxaa caawa gaaray tacsida weerarkan uu sababay, iyadoo lasoo dhigayo ama baraha bulshada loogu tacsiyeynayo dhalinyaro ka mid ahaa jiilka dahabiga ee dalkan usoo koraya oo iyagu ku baxay weerarkaas. dadka arrimaha ugu cajiibsan ee lasoo bandhiga waxaa ka mid ah in nin dhalinyaro ah oo si qaasa xitaa aniga aan garanayay oo saaxiibkay ahaa, walaalkay ah oo Cali Mahdi la yiraahdo uu ka mid noqday dadka ku dhinta weerarkan. barta uu ku leeyahay Facebook profilkiisa waxaa ugu qornayd maalin ayaa jiri doonta tacsideeda aad halkan ugu timaado, ama iyadoo lay tacsiyeynayo aad profilkayga soo booqato, haddii aad halkan fariintaas ugu timaadna ii duceey. waa waxyaabaha ka midka ah waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan ee weerarkan iyagu laga soo calaamadeeyay dadka ku dhintay. ninka dhalinyarada ah iyo sidoo kale jiilalka kale ee da-da yaraa ee caawa ku baxa weerarkaas, rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo. sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee qararacanka ah ee lasoo calaamadeeyay waxaa ka mid ah in nin dhalinyaro ah oo Bashiir Shaaciye la yiraahdo isagana oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed uu xaaskiisii maalmo hor ka hor kusoo dhaweeyey magaalada Muqdisho. balse 2 maalin waxaan ka badnayn oo ay la joogtay caawa uu u dalxiis geeyay xeebta Liido, balse qadarka alla weerarkan uu la kulmay. gabadhii ayaa dhimatay, isagiina waa dhaawaciisa ilaa iyo hadda inta uu gaarsiisan yahay lama oga, laakiin xaaskiisii oridiisii halka ayay ku nafbaxday. waa qadar alle inay Muqdisho ku dhimato ayaana qornay. dadka ku dhintay ayna ka mid noqotay ama lamaanahaasi dadka waxyeeladu gaarta ayay ka mid tahay. hadda waxay ka tageen 3 caruura. waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan ee laga soo calaamadeeyay weerarkan caawa ayay arrintaasi ka mid tahay. dhinaca kale dhalinyarada weerarkan ku waxyeeloobay aaday u badan yihiin marka la qiimeeyo, waana un xogaha hordhaca. dad badan ayaa sidoo kale waa dhalinyaradan aad aragtaan sawiradooda ayaa ka mid ah dadka geeriyooday, kuwaasi oo ka mid ahaa jiilalka usoo koraya dalkan Soomaaliyeed. dhinaca kale waxaa jira iyana dad baadi goobaya qaar ka mid ah eheladoodii oo ay la-yihiin weerarkan markii uu dhacana waxa ay baadigoob u galeen dadkaas iyagoo meel kasta ka baafinaya bal inay bad qabaan. ilaa iyo haddana kalama garanayaan inay caafimaad qabaan iyo inay weerarkan iyagu ku dhinteen ama ku dhaawacmeen. isbitaalada sidoo kale waxaa buux dhaafiyey dadkii ugu badnaa, kuwaas oo isugu jira dad eheladoodii oo ka maqan baadi goobaya iyo sidoo kale dad eheladooda qaar ka mida ay soo dhaawacmeen ama meydadkooda la geeyey isbitaalada bal si ay uga war doonaan. xaaladda Muqdisho ee caawa iyadoo saqdhacaha ay tahay waa qararacan iyo calool xumo, waxaana dhacay musiibo weyn oo saameysay guri kasta oo Soomaaliyeed oo caasimadda ku yaala iyo sidoo kale qaar ka mid ah ee gobolada dalka iyo guud ahaan si guud dadka Soomaaliyeed. waa saq dhexe
xaaladda muqdishona waa iska musiibadaas ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu u boogadhayo guud ahaan dadkii ku dhaawacmay kuwa dhintana ilaahay u naxariiso sidoo kalena laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaa kama hadal war rasmiyana kama soo saarin bal waxaa la sugayaa saacadaha soo socda inay hadlaan kana dhacaan waa wixii cuslaa ee caawa dhacay daawadayaasha ayaan ku laabanaynaa qadadka ayaan ku laabanaynaa saaxiibayaal bal si aan xog kartay ayaan dib ugu laabanaynaa bal macluumaadkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale waxa soo kordhay cumar kartay mar kale waa ku soo dhaweyneynaa bal nasi maxaa xogo soo kordhay waa mahadsantaa bashiirow xoogihii ugu dambeeyey haddaan la wadaagno dadweynaha SMS Somali TV ku xiran weli waa dabcan xaaladdu waa sideedii oo war rasmi ah dowladda ma uusan ka soo bixin laakiin isbitaalada magaalada muqdisho inteeda ugu badan waxa caawa ay dalbanayaan waa in qof walba uu la soo gaaro dhiig maadaama ay jirto baahi aad u badan oo la xiriirta dhanka dhiigga sidoo kale waxay shaacinayaan in ay si bilaash ah ugu adeegayaan dhaawacyada iyo qof walba halkaasi gaarayo si uu markaa xaaladan maada qof walba oo ay saamaysay dowladda Soomaaliya ilaa iyo haatan ma aysan shaacin in weerarkiisa rasmi ah loo soo afjaray laakiin muddo adiga hadda hal saac ay ku sii dhawaanayso wax rasaas ah lagama maqal goobta dhacdada oo ah hotel beach view degmada Cabdicaziz xeebta Liido marka waxa jirto in hadda inta badan dadweynaha magaalada Muqdisho oo wali soo jeedo oo dabcan caawa habeen Muqdisho laga hurdi kara ma ahan isbitaalada ay booqanayaan oo dadka isbitaalada booqaya waxay isugu jiraan dad baadi goob ugu jiro dadkooda oo ka maqan oo ay tabayaan isla goobaha goobta ay wax ka dhaceen oo Liido ah ay ku ogaayeen oo isbitaalada buux dhaafiyay dad dhaawacyadoodii isbitaalada kula jira iyo dad Soomaaliyeed oo dabcan caawinaya dadkaasi oo qaarkood dhiig shubayo marka jaamka ugu badan xilligan wuxuu ka jiraa isbitaalada magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay dabcan saan horay u baahinaba in war rasmi ah arrintan ay ka soo saari doonto weerarka sidoo kale warar ka soo kordhay waxay tilmaamayaan in mid kamida dadka ama kuwa isqarxinayo ay banaanka hotelka isku qarxiyeen sidoo kalena qaarkood ay banaanka hotelka ama xeebta gudaheeda ayagoo ku sugan ay bambaanooyin ku garaacayeen hotelka qaarkoodna dabcan muuqaaladooda ayaa durba la helay muujinayo ayaga oo yaallo halkaasi waxaana ka muuqatay inay ahaayeen rag dhalinyaro ah oo aad jirkooda ugu adag yahay isla marhaantaana usoo diyaar garoobay hawshan in ay qabtaan tan waxay muujinaysaa in al-shabaab awoodoodii ay sii wiiqmayso dabcan waxay ku soo aruureen hadda inay daadiyaan dhiiga maatada shacabka ah waxayna awoodi waayeen sida muuqato in ay goobihii dowladda ay beegsadaan iyo sidoo kale in magaalada qaraxyo ay baabuur ku xiran ay la soo galaan waxayna ku soo aruureen kaliya in ay dadka shacabka ah ee maatada ah aan waxba galabsan waqti qaadanayo dhalinyarada ah habeenadii caawinayo aan waxba saameyn ku lahayn dowladnimo iyo xataa waxa lamid ah iyo sidoo kale dad shacab oo iska shaqaysanaya yihiin muslim ah dabcan laga yaabo in saacadii cishaha intooda badan xilligaas ay soo dhigteen oo ay ka soo baxeen masaajida in la beegsado dabcan qof walba Soomaaliyeed oo caawa Muqdisho ku sugan iyo meel walba Soomaali joogtaba waa dareemi kartaa arrintaasi dhibaatada ay leedahay waxaana muuqato in dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed marba marka ka dambayso ay la kulmayaan mahadooyin iyo wax aysan niyadooda aysan ka hadli karin ama aysan ka sheeki karin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa mar kale ka SMS ahaan in ay booqdaan isbitaalada ay dhiig shubaan arrintaana dabcan ay meel uga soo wada jeestaan oo ah in dadka Soomaaliyeed dhibaato gaartay in garab iyo gaashaan loo noqdo aad iyo aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena Cumar Cali Dhablaawe Cumar Kaartay oo nooga warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyay musiibadii caawa ka dhacday xeebta Liido Cumar wuxuu joogaa agaarka meel aan ka dheereen xeebta Liido oo halka caawa la weeraray si guud waxaan fariinta halkan uga gudbinaynaa bulshada ay tahay inay gaaraan isbitaalada isla markaana fariimaha isbitaalada ay caawa ka jawaabaan xaadiraana isbitaalada si ay dhiigooda ugu deeqaan walaalaha ku soo dhaawacmay qaraxyadii caawa ka dhacay ama weerarkii qaraxyadu ka horeeyeen ee caawa lagu qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho guud ahaanna live-keena ayaan halkaa ku hakinaynaa saaxiibayaal wixii xogaa oo soo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa si degdeg ah haddii Allah uu diray ogolaado